عمر عبد القادر أحمد فقي waxa uu ka mid yahay musharaxiinta muddo kooban qalbiyada ummadda Soomaaliyeed ku hantiyay kadib markii uu la wadaagay malaayiinta Soomaalida qorshaha dhabta ah ee uu dalkan ku hogaamin doono goorta uu hanto xilka madaxweynenimo. Wareysi gaar ah oo uu siiyay warbaahinta Horyaal, Cumar Cabdi Qaadir Axmed Fiqi ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlay arrinta ku dhalisay inuu ka qayb noqdo musharaxiinta ku loolamaya qabashada madaxweynaha Soomaaliya iyo qorshayaasha uga yaala haddii uu ku guuleysto xilkaasi. sababta ugu muhiimsan runtii ugu dhalisay inaan ka qayb galo tartanka hogaaminta dalka waxay ahayd dalka xaaladiisa oo muddo dheer ku soo socotay hogaan xumo dawlad fashilantay ayadoo mar walba caqabado iyo isfahmi waa bahda siyaasadda dalka hogaamintiisa ku tartanta mar walba ay dhex taalo waxa ay muuqatay in runtii loo baahan yahay hogaamin cusub khibrad cusub leh aragti cusub leh fikir cusub leh hogaamin kara dhisi kara Soomaaliya cusub shacabkeeda ka bedeli kara duruufta ay ku jiraan una jihayn karta dadku inay dawladda ay rabaan la gaarsiiyo ku dhisan dastuur ku shaqeysa sharci isla xisaabtanta hufan oo maaragtay dadku ay ka warqabaan ama transparent waxa lagu yiraahdo afka qalaad ku salaysan dimuqraadiyad waxana u qaban karta bulshadeeda marka runaantii aragtidii dhabta ahayd oo aan isleeyahay maanta dalkan u baahan yahay oo looga gudbin lahaa caqabadahaas iyo khibradii loo baahnaa iyo ka warqabkii wadanka muddadii dheer aan ka soo shaqeynayay waxaan isleeyahay waa leedahay maanta hogaaminteedii waa leedahay aragtideedii waa leedahay maaragtay hadii Ilaahay ku qadaro inaan wax ka qaban karto dhibaatada jirta marka baahidaas ii muuqatay ayaa runtii ugu kaliftay inaan soo haweysto ku hamiyo aan isleeyahay waxna waa ka qaban kartaa hadii Ilaahay runaantii horta dawladda hadda noo dhisan waa dawlad qalfoof ah oo magac ahaan bay u jirtaa laakiin institutionski ama hay'adihii dawliga ahaa wali uma qaabaysna inay noqdaan qaab uga faa'iideeyo bulshada oo u shaqeeya tayadii loo baahnaa malahan ama capacity-gi loo baahnaa marka runtii waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan oo si wax loo qabto oo dawladdu ay u noqoto dawlad dadka wax tarta waxa ugu horeeya in wax laga bedelo haykalka dawliga oo hay'adihii dawliga ah ay noqdaan hay'ado tayo leh hay'ado efficient ama effective oo waxtarkoodii iyo waxqabadkoodii iyo hufnaantoodii intaba la horumariyo haddii lagu guuleysto hay'adaha inay dhismaan waxa fududaanaysa in caqabadaha jira la xalliyo oo ay ugu horeyso in la dagaalamo musuqmaasuqa in la dagaalamo laaluushka in la dagaalamo boobka hantida oo la caadaystay oo siyaasiyiinta Soomaalidu ay magac weyn ku leeyihiin inay musuqmaasuqa adduunka ugu horeeyaan in wax la qabto oo wixii baahida bulshada wax laga qabto ammaanka wax laga qabto horumarinta caafimaadka wax laga qabto waxbarashada la maalgeliyo infrastructure-kii loo baahnaa hadday noqoto wadooyin hadday noqoto biyo hadday noqoto koronto hadday noqoto wixii loo baahnaa bulshada wax u qaban lahaydna la maalgeliyo iyo qaybta u dambayso ah in dadka loo abuuro fursad shaqo oo dhaqaalihii kor loo qaado oo resource-ga ama hantida Ilaahay siiyay si uga faa'iideysan lahaayeen loogu horumarin lahaa la diyaar gareeyo marka qorshahaygu wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood qaybta koowaad waa in hay'adihii dawliga ahaa dib loo yagleelo dib loo dhiso dib loo saxo oo lagu sameeyo waxa la yiraahdo radical reform afka qalaad lagu yiraahdo si ay u noqdaan hay'ado tayo leh hay'ado gudan kara waajibkoodii hay'ado la dagaalami kara dhaqan xumada iyo boobka iyo maaragtay corruption-ka iyo musuqmaasuqa ka bacdina wax qabadkii asaasiga ah bulshada u baahnayd si u kala mudan yihiin loo kala hormariyo oo ammaanku uu ka yahay caafimaadku ku xigo waxbarashada ku xigto iyo infrastructure-ka oo asaasiga u ah in horumarin dhaqaale la sameeyo oo dhalinyarada oo u badan bulshadeena oo intooda wax baratay ay aad u fara badan yihiin shaqalaan baahsan ay ka jirto qorshayaal shaqo abuur ah oo ay waxna ku qabsan karaan noloshooda ku horumarin karaan loo diyaar gareeyo marka si bulshada wax loogu qabto mar walba waxa u baahan tahay hay'adihii dawliga ah inay shaqeynayaan waxa u baahan tahay waxyaabihii asaasiga ahaa oo gundhiga u ahaa horumarinka nolosha in wax laga qabto marka fursado dhaqaale la abuuro oo kobcintii dhaqaalaha qorshayaal loo sameeyo si dadku uga faa'iideystaan oo mar walba waxbarashadii iyo shaqooyinkii iyo qorshihii dawladdu isla wada shaqeeyaan insha Allah
musharax madaxweyne Cumar Cabdiqaadir oo halkaasi ka sii waday hadalkiisa ayaa xusay waxa uu uga duwan yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee xildoonka isagoo iska fogeeyay dalal shisheeye iyo cid kale oo qarash gareynaya ololihiisa doorasho. dabcan aniga horta waxa warno dadka siyaasiga oo Soomaaliga waxa lagu bartay inuu beelow yahay, waxa lagu bartay inuu ballantu sameeyo oo jabiyo, waxa lagu bartay inuu yahay nin xukunka ku waasho markuu xukunka tago inuu awood dhan inta marooqsado wuxuu doono uu sameeyo. dhaqankaas waa dhaqanka siyaasiga oo anigu qof ahaan aan rabo inaan la diro. marka runtii waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed maqashiyo waa inaan ka duwanaadaa siyaasigii hore ee Soomaaliga ah oo aad taqiineen oo beenta sheegay oo hantidiina boobay oo wuxuu ballan qaaday ka baxay oo awoodda inuu mar walba marooqsado oo qofku uu rabo asagu wuxuu rabana wax siiyo cid uu rabo inuu wariyo cid uu rabo inuu dalacsiyo aysan sii socon karin oo ay Soomaali mustaqbalkeeda aysan halkaas ahayn, laakiin ay tahay mustaqbalka Soomaalidu inaan xoojino oo dhowrno dadku waxay ku heshiiyeen oo dastuurka ah. haddii aan dastuurka la dhowrin dawladnimadu ma shaqeynayso. haddii aanan ilaalin sharciinta sharciga oo uusan sharcigu talinin ama waxa la yiraahdo rule of law dawladnimadu ma shaqeyn karto, dadkuna dawladnimada ma aaminayaan. labadaas haddii lagu guuleysto hay'adaha inoo shaqeynaya isla xisaabtan baa imaanaya, daahfurnaan baa imaanaysa, iyo qodob kale ah dimuqraadiyadda in la xoojiyo oo dadku ay awoodda dawliga wax ku yeeshaan oo ay doortaan si xor ah oo madax bannaan. dadka ay isleeyihiin mas'uuliyadihiina waa u dhiiban kartaan, hantidiina waa idin ilaalin karaan, waxba idin qaban karaan. marka run ahaantii caqabadaas waa jirtaa, laakiin aniga haddaan rabo inaan u dhaqmo siyaasigii hore Soomaaliga ahaa sabab aan in xukunka uu soo doonto ima muuqato. waa inaan ka duwanaadaa oo la imaadaa aragti ka duwan, fikir ka duwan, dhaqan ka duwan siyaasigii hore ee fashiliyay nidaamkii dawliga ahaa ee Soomaalida. in dana shisheeye ay ku yeeshaan saameyn siyaasadda iyo habdhaqanka siyaasiyiinta Soomaalida ah. taasna waxa sababaysa waxa weeyaan siyaasiga Soomaaliga baa raadiya oo raba oo u diyaar ah inuu siisto xoogaa yar dhaqaale ah masiirkiisa iyo masiirka ummadiisa. run ahaantii waxyaabaha aan rabnay inaan ciidamada u siibnay ka mid tahay waxyaabaha corruptionka ama musuqmaasuqa ee waddankan ragaadiyay bay ka mid tahay in dawladda shisheeye danahood iyo dhaqaalahood dadka lagu dhibaateeyo. marka arrintaas annaga horena waa uga digi jirnay, haddana diyaar uma ahay anigu hadda dawlad gaar ah aan la shaqeeyo ama aan dhaqaale ka malaynayo ama aan lacag ka raadsaday ma jirto. waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ayagu taageeraan campaign-kayga, gaar ahaan anigu muddo dheer aan ganacsada soo ahaa. wax xiriir badan baa waxaan leeyahay bahda ganacsatada iyo dadka dhaqaalaha haysta ee Soomaalida ah. waxayna ahayd qorshahaygu fayska koowaad ee campaign-ka anigu inaan iskharash gareeyo oo baahidayda aan bixiyo. ilaa haddana tiibaan ku jira. haddaan markaa u muuqanno inaan nahay fursad leenahay, ay u muuqato inaan guulaysan karno, fariintayada iyo aragtidayada dadka Soomaaliyeed ku qancaan, waxaan rajo ka qabnaa ganacsatada Soomaaliyeed oo aqoonta ii leh hadday u muuqato inaan fursad fiican leenahay oo aan guulaysan karno, inaan wixii kale aan u baahannahay oo campaign-kan uga baahannahay ay bixiyaan. midda kalena waxa weeyaan aniga ma aaminsani in la iibsado siyaasadda. qaabkii loola dagaalami lahaa in ra'aasada dalka ama hoggaanka dalka lacag lagu kala gatana. mudane Axmed Fiqi oo u soo daadegay wadciga siyaasadeed ee haatan ayaa dhaliilo u jeediyay madaxweynaha uu ka idlaaday muddaxileedkiisa ee Farmaajo, waxa uuna ku tilmaamay qof baalmaray sharciyadii u yaalay dalka. horta runtii waa ayaan daro in maanta aan taagannahay ayadoon heshiis doorasho lagu ahayn, dawladdii jirtana waqtigeeda uu dhammaaday, haddana ay ku sii joogto qaaban dastuuri ahayn, sharcina aan ahayn. waxaa kaloo runtii aan aad uga xumahay in dadka Soomaaliyeed la gaarsiiyey meeshaas hadda aan la ogeyn mustaqbalka meesha la aadi doono oo khatarteeda leh oo keeni kara xasilooni darro siyaasadeed, oo keeni kara amni darro, oo keeni kara isku dhacyo. marka arrintaas horena waa uga dignay, haddana waa ka xunnahay inay maanta meeshaas taagannahay. eedeedana waxaa iska leh madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. isagaa ahayd in uu arrintan u diyaar garoobo. caqabad asagaa wuxuu ku noqday doorashada in lagu heshiiyo, caqabad asagaa wuxuu ku noqday in hore loo socdo. haddee waxaan isleeyahay haddii aan la heshiin oo wax heshiis lagu yahay aan lagu wada shaqayn, rabitaan qof ma shaqayn karo. dawlad qof go'aankeeda iyo masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda hal qof uu ka go'o waa wixii Soomaaliya shalay eeday, maantana lama aqbali karo, mustaqbalka ummaddaana kuma xirna. marka haddii la heshiin waayo dabcan ummaddu waxay u tashanaysaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo
sharci darrada uu ku joogo fila Soomaaliya in qaabkii looga saari lahaa laga tashado marka halka dariishada furan waxa weeyaan isku dayga hadda la wado oo ah in lagu heshiiyo qaabkii doorasho u dhici lahayd oo Sheekh Maxamed Abdullaahi Farmaajo hor taagnaa maantana hor taagan yahay haddii ay muuqato inaysan rajo lahayn in la tashado oo qaabkii meesha looga wareejin lahaa laga tashado ayaa ku xigta marka waxaan leenahay Maxamed Abdullaahi Farmaajo Sheekh adaa caqabad ku ahaa in doorasho dhacdo maantana adaa caqabad ku ah mar kale ka fikir ummadan masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda adiga daraada ma loo burburin karo waa inay doorasho dhacdaa haddii aad diidid oo hor istaagto doorasho inay dhacdana waxa iman doona wax kaleeto oo ka duwan xurmadii aad ku lahayd ummadan iyo mas'uuliyadda aad u haysay waa ka dhamaatay ma si joogi kartid meesha in dagaal la galo maxaa sababay in dadku ay qori qaataan maxaa sababay marka qofkii dhibaataysnaa hadduu waayo xuquuqdiisii hadduu waayo xaqiisii hadduu waayo wuxuu xaq u lahaa xaq darro iyo dulmi hal ku hoos noolow aragti sax ma waxa ummadan ku heshiisay waa sharci dawladnimaduna waxay ku dhisan tahay waa sharciyad haddii sharcigii iyo wixii lagu heshiiyey la dhowri waayo dadku inay isdirraan waa khasab wax celin karaa ma jiraan marka sharci darra lagu xukumayaa iska aqbal horta dood sax ma doodda saxa waxa weeyaan haddii aadan sharciga dhowrin haddii aadan xurmaynin wixii lagu heshiiyey haddii aad ogolaanin in doorasho la waayo meesha ma joogi kartid waayo sharci aad ku joogto ma lihid marka dadku waxay rabaan nidaam ay ku naaloon karaan oo mustaqbalkooda ku aamini karaan laakiin haddii la waayo hadda nin walba inuu tashado xaq u leeyahay waxyaabaha ogtahay asaasiga u ah nidaamka dawliga waa sharci haddii sharci la waayo waxba lama qaban karo waxa asaaska marka muhiimka waxa weeyaan wixii lagu heshiiyey iyo sharciyadii in la ilaaliyo oo la dhowro oo qof walba xilka saaran yahay waxa ummadda isku hayo oo isku xaq dhowraysana waa sharciyadaas iyo heshiiskaas ummadda ku heshiisay dadka gobolkan degan gaar ahaan magaalada Muqdisho aan waxaan qabaa inay aad iyo aad u dulqaateen aad iyo aad u samreen aad iyo aad rajo dawladnimo ay u raadiyeen laakiin dulqaadkaas iyo dareenkaas wanaagsan in looga faa'iideysto lagu dulmiyo sax ma haddana qof garaacayo oo xabad hal qaato dagaal hal gala ma jiro laakiin haddii sharciyadii iyo wixii dadka isku hayay ay la saluugo ama lagu kala qaybsamo isla kala qaybsankaas iyo kala aragtiduwanaadaas iyo kuma aqoonsani waxa ka dhalan kara waxyaabo aan maanta jirinin oo bari iman kara marka waxa laga hortagayo waa wax soo socda maahane wax hadda maanta taagan maaha waana dabcan waa nolosha ku xiran tahay haddii aan iyo adigu wixii naga dhexeeyay aan ku dirirno oo aan ku heshiin weyno aakhirka inay gacan ka hadal tagtaa dhici karta marka waxa la rabaa inaysan gacan ka hadan gaarinin marka waxay ku xiran tahay oo guntintu ka xun tahay waxa waaye ninka sharci darrada meesha ku fadhiya caqabadna ku ah in doorasho xor oo xalaal ay dhacdo oo la meeshan anay ugu fiican tahay ana joogaya doorasho haday dhacayso mid anu aan leeyahay anigu aan ku soo baxayo ninka rabo xildhibaan ka dhigayo ninka raban uu san noqonaynin ayaa dhacaysa hadii kale meesha doorasho dhicmayso marka xaaraan lagu ma joogi karaan leenahay xukunka dalka dadkuna meeshii anigu waxaan qabaa meeshii la canaanan lahaa oo lagu jihayn lahaa dadka danaynayo dulmiga iyo xaaraanta meesha ku jooga shacabka in la yiraahdo xuquuqdiina ha dalbanina ha mudaharaadinina ha soo bixinina ha qaylinina bogta in la yiraahdo sax ma dadka waxa la rabaa in la yiraahdo xuquuqdiina difaacda soo mudaharaada dibadda u soo baxa ninkan sharci darro meesha ku jooga laga aqbali ma inuu sharci darro ku joogo ama waa inuu doorasho aqbala ama waa inuu meesha ka baxa marka in la cabsi geliyo la yiraahdo dagaal baa dhacay waa soo burburteen dhibaato ay ku dhacday waxa soo waa cabsi gelis weey oo xuquuqdiina ka tanaasula ay macnaheedu noqonaysaa saxna ma in la yiraahdo dadka xuquuqdiina ka tanaasul oo dulmi ku hoos noolo loo sharciyay marka waxaan leenahay fear mongering waxa la yiraahdo oo mogta dadka inaad la cabsi geliyo oo la yiraahdo xuquuqdiina ha sheeganin hadii kale balaa idin ku soo dhacaysa cirka dhulka idin ku soo dumay sax ma waa in la yiraahdo waxaan waa xaq maahan dulmi ma leeyahay kuma laan sharci maahan xaq leeyahay kuma le diida gabagabadii musharax madaxweyne Cumar Cabdiqaadir ayaa cadeeyay siyaasadda tiro musharaxiin ah oo hogaamiyo looguna magac daray kudlada midowga musharaxiinta Soomaaliya waxa uu dhanka kale baaq u jeediyay qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ugu dambeyntii musharax madaxweyne Cumar Cabdiqaadir ayaa waxa uu ololihiisa saaray qidmeynta bulshada nugul waxauna tirooyin badan ka soo qayb qaatay samafalka arrimaha bini'aadanimada isagoo u fidiyay dad danyar ah hawa sax weey anaga horta hadda waxaan nahay musharaxiin kooxa
oo aanu bixinay kudladda madaxweyne musharax madaxweyne kudladda musharax madaxweyne ee dhexdhexaadka baan u bixin macnaheedu waxa weeyaan qoladan hadda xukunka haysato sida baadilka ku joogtana lama jirno qolada kale hadda kudladda la yiraahdo midowga musharaxiintana kama tirsan macnaheeduna ay tahay dhexdhexaadku macnaheedu inuu yahay xaggana lama safrin xaggana lama jirno laakiin laba meel dhaxana annagu oo xigmadda ku jirta ay tahay aragtida aan wadanka ka leenahay fikirka aanu qabno annagu dad waxaan nahay ku cusub siyaasadda hore aan xilal sarsare dalka uga soo qabanin wax eedaah oo hadda loo haysan aanu isleenahay maanta idinka uga habboon dadkii hore xukunka hore u soo qabtay iyo kuwa hadda haystaba fikir cusub baa wadataan aqoon-yahanaad tihiin wadanka muddo ka soo shaqaynayseen khibrad ballaaran baad leedihiin wadanka dadka hoosaad xiriir la leedihiin marka waxaan is leenahay runtii dhexdhexaadnimadu macno kale ay leedahay maahane yani fikir ahaan iyo aragti ahaan iyo abaabul ahaanba waa kaga duwannahay oo hadda dad ku mintidayo xukunkaanu rabnaa mahay waxaan ogol lahay in si xoolo xalaal loo tartamo waxaan ogol lahay haddii nalaga helo inaanu u bogaadino ciddii naga hesha inaan laaluush la bixiyo ma ogolin in bahashii xukunka lagu raadiyo si aan marka horeba xalaal ahayn ma ogolin waxaan rabnaa marka runtii inaanu baahida bulshada ka turjunno oo aan uga turjunno qof ahaantayo aragtidayada waxaanu qabno waxaanu isleenahay Soomaaliya masiirkeeda ku jira aan lagu degdegin waxa la yiraahdo violence-ga ama dagaalka dib loo dhigo xeelada kale mar walba la yimaado marka runtii haddii shacabka Soomaaliyeed maanta loo bandhigi lahaana waxaan isleenahay xiriirka aan la leenahay bulshada iyo fikirkayaga iyo sidaan u fahamsanahay dhibaatada iyo caqabadaha jira iyo wixii la soo maray iyo waxaan mustaqbalka ka rabnaa inta markii la isu geeyo waxaan isleenahay ciidanka ka habboon maanta tartankaas ma jiro waayo musharaxiintu inay farabataan aan waa qabaa sababta waxaan isleeyahay dadku hadday bataan dadkii wanaagsanaaba ka soo dhex muuqanay laakiin haddii lasoo koobo afar nin ay noqoto afartaba waxaa laga yaabaa inaysan ahayn dadkii ku habboonaa laakiin waxaan rabnaa inaanu yeelano aragti ah tartanku inuu cadaalad noqdo doorasho inay xor noqoto wixii inay xalaal yihiin oo sharciga siduu qabiil la maro oo aanu yeelano dhaqanka ah in cadaaladdu ay tahay aasaaska nolosha iyo bulshada oo haddii si xor loo tabo si xalaal loo tartamo wixii meesha ka soo baxa lagu wada qanco lala wada shaqeeyo dawladnimaduna ay ku dhisnaato wixii ummadda ku heshiisay iyo sharcigii iyo qaanuunkii noo yeelay nasiib darrada dhacday waxa weeyaan kuwa talada hayana maantay sharciga ma ogola dastuur ma ixtiraamaan dhaqanku waxay leeyihiin dhaqankii siyaasiga ahaa ee Soomaali fashiliyay bay yeesheen rag badan oo tartamayana waa rag horay u soo maray xilal oo waxa hadda ay ka cabanayaan oo kuwa jooga ay suubinayaan waxa la mid ah suubin jiray ama aragtidoodii fashilantay ay sabab u ahayd in maanta meesha aan taaganahay marka waxa la qofka muuminka laba mar meel laga muuda qaniyo marka dadka Soomaaliyeed fariinta aan u diray waxa weeyaan ma mudnidin in maalin walba buuq siyaasadeed iyo khilaaf siyaasadeed iyo dawlad fashilan aad dhexda ka fadhido waxaan leeyahay marka dadka Soomaaliyeed dhagihiina fura miirkiina fura maskaxdiina fura waxa dantiina meeshay ku jirto difaac waxaad maanta u baahan tihiin hoggaan cusub aragti cusub leh fikir cusub leh Soomaali cusub yagleeli kara diyaar u ah in uu ku dhaqmo wuxuu ummadda ku heshiisay oo ilaaliyo diyaar u ah inuu ka shaqeeyo sareynta sharciga diyaar u ah dawlad isla xisaabtanta oo la dagaalanta musuqmaasuqa iyo baadilka iyo maaragtay boobka hantida leh dawlad daah furan oo transparent ah ku dhisan dimuqraadiyad dadkeedana wax tari karto wax qaban karta anigu marka hadii Ilaahay uu guuleeyo waxaan ballan qaadayaa horta hay'adaha dawladda hawliyada dawliga aan dib u dhisno dastuurka aanu fariisino sareynta sharciga aanu ilaalino ama waxa la yiraahdo rule of law la isla xisaabtamo shacabkan aan wax u qabanno oo way dawladda xigmadda laga leeyahay oo dhan maxay tahay waa inay horumariso nolosha dadkeeda naftooda iyo maalkooda ilaaliso deegaanada ay ku nool yihiin horumariso xuduudahooda ilaaliso fursado dhaqaale oo abuurto marka dawlad intiiba aan lagu qabinin oo koox yar leedahay ama qof leeyahay ama taladeedu qof ka go'do waa wixii hore aan u soo marnay dadkii hore u soo marayna ay ku dhaqmi jireen haddana aan rabnay inaan ka guurno oo aan uga guurno meel ka fiican marka dad aragtidii sax ahayd leh oo u diyaarsan
inay wax ka bedelaan hanaanka dawliga ee maanta jira oo Soomaaliya waxba tari waayay ay ku fashilantay yaanan si taageeri fikirka cusub aragtida cusub iyo hoggaanka cusub ee maanta u diyaarsan inuu wax ka bedelo dhaqankii fashilmay ee siyaasiga ahaa shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay taageera aragtidaasna ana leh campaign-kayga wada waxaan leenahay marka ku soo dhawaada campaign-kan uu hogaamiyo mudane musharax Umar Abdulqaadir Axmed Fiqi waxaan idin ka rajeynayaa inaad taageertaan waxaan idin ka rajeynayaa inaad wada aragtaan waxaan rajeynayaa inaan waxaan ballan qaadaynaa inaan wax ka bedelo dhaqanka siyaasiga iyo hanaanka dawliga ee maanta Soomaaliya caqabada ku ah Nuno Xuseen Sheekh Maxamed muqbaahiyaha caalamiga ee Horyaal magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.